وحكى سوالكم ما قفتي صدر يلي أيات كله كدره وررتا منصب كستا إيه مقام كستا تاجنت هاي ما دعنا نحن كربنا إني أفصومالي قضوا موجيان موادين من ذي إذا لشذا وحويه وحي كحرتاي واحد أديك هذاش ضد كان شاشية الله الله يو قعدوا قاتا ضد كان شاشية ما كان عنده عود موضوع وتجنو صالحان كسوقبا وحي نقول الله يان لقط ضد مو أقرأ إن لقط كاتات معنا يجوا السن كان جبر إن لقط ضد أنا عم برانو أما ترجمات أنا لور هذه أنا محددي ما كان عنده وتجنو كلا جوابه يجوجان أما ينوي ماذا أما شركة عالمية إن أنا في الصومال كهذا وترجمات وبعضان halka waxa ka imaanaysa shaqo abuur fiican dad badan oo Soomaaliyeed baa wax u baahnaa noqolayeen inay turjumaad helaan af Soomaali si fiican u yaqaan marka luqadaada ayaa dad ku taysiisaba dal iyo dadba waxa midayn kara waa luqadooda dad hadii salahan ku hadla Ingiriis oo kale ama Carabi ku hadlo kale ama luqad shay ku hadlo kale dadkan caadi waxba kama dhibta laakiin dadka madaxda ah dad baa fiirsanay oo warbixinada tixraacay marka waxa muhiim ah dadka ama madaxdeena Soomaaliyeed in af Soomaaligu iyagu maadaama ay mas'uul ka yihiin dadka iyo dalkaba iyo luqadaba in af Soomaaliga ay aad u ilaaliyaan ruuxantii haday yaqaanaan haday aqoonina wax wala bartaa waa luqad barashay u baahan tahay